jacaylku curyaannimo ma leh. والله halkaan bay niyow igu ballamisay wayna igu soo kadisay ballantaan degdega maxay ahayd awal sawirro waxaan u diri jiray oo haafa laakiin hadda igu soo kadisay ballantaan aniga ma ogeen laakiin inaan lug soo gashto sorry wallahi way igu soo dedejiday waxaan filayaa insha Allah khayr baan kala kulmi doonaa laakiin gabdhaha xilligan jira niyow waa ila meerayso laakiin waxaan ka filayaa khayr baan ka filayaa إن شاء الله waxaan sugeynaa ciidan sugaa عابل taleefankeedana lama heli karo wuu noqonayaa yow aniga dhan waxa waaye waa cabsanayaaba waxaan kala kulmi doonana ilaahay baa yaqaana laakiin khayr baan filanaynaa khayr igu soo kadisay arrintan ballantaa igu soo kadisay حبيبي ها قور maxaa kaa qaldan adiga waxaan luqmanka maxaa ku stijiyaade bro maxaa kaa qaldan curyaannimada igu aragtay ilaahaygi sidaa iga dhigay inuu joogo ma ogtahay niyo lugahan niyo waxaa lugaa ku jara qabtaa luqmanka ku istaajiye lugaa ku qaraabanaynayo dadku wadada u banay kuu yeelay baa aad jooga anigana sidaa iga dhiga bro lugaa ku jara qabtaa aan wacbal aydin hallo baby meesha igu ballamida baan joogaa baby ku aawo magacyo abdheyda naajuu beela naajuu hallo baby kaalay naajuu dadku lama socon yaa adiga sorry hadii aan ugu qaldamay qofaan maxaa dhacday dadku lama socon yaa walaal maxaa dhacay kaliya inta lagaaga tegay walaal waa way la socdeen laakiin way iga tageen hadda way iimanayaan haye sorry waa wacani aniga haye walaal raaxadaada qaado qofaan sugaya aniga okay oh my god inta ka aan saxayna hadda ina sugayaa اوكي والله البسي ماديغا والله ني واي اوكي والله ماديغا وانيغا sorry wallahi waa jeclaa inaan kuu soo diro sawirkayga dhameystira laakiin ma aysan noqon kadisa iga dhigta ballan ma yadaa walaalkadiis iga dhigay laakiin arrimo badan baa rabay inaan kala hadlo ma sha Allah wax yar ma fariisan karnaa arrimaha wax yar kala hadlayaa okay maxay igala hadli rabtaa walaal waxaan rabaa in arrin kuu sheego shalay oo dhan baa rabay inaan kuu sheego laakiin waxaan is dhahay maadaama aad u tagaysid si life arrimaha ugu sheeg arrimaha waxa weeyaan walaal dhibaataha u arkin wax xumaan ma jiraan laakiin arrin degdeg ah igu soo kortay si aan kuu sheegan waan gara waayay wallahi igraan noqsaan wax kuu sheeg xataa ma garanay walaal runtii maamada hooyaa waxay ii soo bandhigtay wiil soo waxa la igu yiri wiil inaad tagay qasab lagu daraa walaal maxaa sameeyaa walaal ma waxay hadda curyaannimada igu nacaysaa may walaal xumaan ma ahan ilaahay baa curyaannimada waxaas ma kugu nacay laakiin waxaa jira maadaama la ii soo bandhigay wiilkaas waa inaan guursado igraan wax walba ana diyaar laa wax walba dumar laga geey jira ana diyaar laa may walaal wallahi aad iyo aad waa ka xumahay aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga laakiin sorry wallahi ma awoodi karo inaan maaragtay aan maanta xiriir kula sii sameeyo sababtoo ah ducadeeda xiriirkeena masaana ku jiraysaa hadda ana diyaar laa wax walba xidda ama aan la xaalayo walaal
waxaan rajeynayaa inaad qaadato warkayga may walaal waa maasantahay laakiin aniga duca iyo waalidi waxa la igu yiri duca iyo habaar mid dooraan ducadan qaatay marka walaal iga raali noqo insha Allah mid iga fiican baa heleysaa iska fiican may walaal hadda ma hilmaantay wixii naga dhaxay xiriirkii iyo waqtigii quruxda badnaa soo hadda waa maxaan sameeyaa maadaama waalidku waxay soo bandhig waalidku wixii soo inaan qaataa warkiisa maxaan sameeyaa hadda wax kale aan sameeyo hadda aniga wax walba diyaar ku lahaa walaal may walaal iga raali noqo iska kay cafi iska kay maaragtay iska kay waqti qurux badan baa wada qaadan walaal ma iloobi karo may siloosi walaal may yani ma awoodin sakaba may jacaylku curyaannimo ma leh qofka dhammaystiran iyo qofka dhammaystiran iyo qofka curyaanka isku si inay ula tacaamulayaan rajeynaya anigana waxaan rajeynaya inuu jacaylkaygii soo laabto iska sabar walaal walaalayaal message-ka aan gudbinayna kuma saabsana walaalkeen Zaki waxaa jiro dadyo badan oo maasha Allah lixaad aan taam ama gacan ha aata ama lagu haato meel kasta meeshuu la yahayba maanta marka fikirkan walaalkeen Zaki ayaa keenay dad asiga lamid ah ayay dhibaatadan oo kale haysata mar gabdhaha Soomaaliyeed ama wiilasha Soomaaliyeed qof alaala qofka cad ku maqan yahay ha ciilciilin walaal marka hore wax walba oo qofkan yahay ku qadari ku xushmay waxa laga yaabaa inuu dhaamo kuwa badan oo lixaad leh gabar iyo wiilba waxaan rajaynayaa inaad si fiican la tacaamushaan qof walba oo dhibaataysan walaalkeen annagu naga farxad badan yahay qof walba oo curyaanana waxaan leenahay iska faraxsan curyaannimadu ma ahan in qofku jiis ahaado ama lug ay ka go'onto ama gacan ay ka go'an tahay qalbiga ayaa laga curyaama gabaray ama wiilay waxaan ku leeyahay la tacaamul ama si wanaagsan ula dhaqan dadka qaba baahiyaha gaarka kan waxaan u direynaa qof walba oo baahi gaar ah qabo iyo dadka sida iskula dhaxgal lahayn isku macaamil lahayn marka hore waxaan leeyahay walaalaha oo baahida gaarka ah qabo iyo dadka caadiga ah waa isdhaxgal inay isfahmaan oo dadkan oo kale hadda waxaan ka jireynaa riwaayadan wax muhiim ah weeyaan sababtoo ah dad badan oo qabo ayaa jira oo ku dhaqmaasaan oo kale gabaray hadda wiil ka heshid aad jeclaatay saas ah uga tagin waa inaan walaalka weeyaan Soomaaliyeed waa inaad caawisaa qalbigana curyaan lagama aha bis waa wuxuu alla keenay taasna waa tusaale annaga nalagu tusaale qaadayo marka insha Allah waxaan leenahay haddaad haysaan fikrada ku saabsan sidaan oo kale waa nala soo wadaagi kartaan si aan u sameeyno waxyaalo badan filmo badan uga sameeyno wabiga yaa weyn